barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal, hanaanka dowladnimo ee dhammaadkii qarnigii 19aad ay gumaystayaashu dalka ku soo rogeen ka hor soomaalidu waxay ahayd tolal aan awood qurihi u wada talin. hase ahaatee waxay ahaan jirtay xeerar ay ku dhaqanto oo dhinacyada nolosha oo idil dabooli jiray, xeerar qaarkood isqoonsiga iyo qardoofooyinka ay ku maarayn jireen oo inta ku xaalaan ay ku nabdi jireen. had iyo jeerna aan idin xusuusiyey waxay colaaduhu dhex mari jireen tolalka kolba intooda deriska ah, kuwaasoo ku loolami jiray ilaha dhaqaale oo ku koobnaa ceesha ay ka cabbaan iyo carshinta ay xoolaha daaqsadaan. intaas waxaa soo raaca oo colaaduhu ay ka aloosmi jireen xoolaha ay kala qaadaan oo ragga lihiiso dhacsigooda ay nafta u huri jireen. sidoo kale waxay geeri ka xigi jireen dumarkooda haddii la fara xumeeyo amaba anshax darro kale lagula kaco. si kastaba ha ahaatee, colaadu waliba ugu dambaysta waxay ku dhammaan jirtay in laga xaajoodo oo qolyaha ay dhex martay intay isu soo fadhiistaan ay is-eedaystaan, iyada oo qolo waliba ay sheeganayso dhiig iyo dhabbaqo wixii dhinaca kale ay ku tabayso. arrintu markay joogto dhiig la iska galayna laba mid unbay ka dhalan jirtay: in qof uu qof kala dilo dabadeedna lagu qaanabo, iyo in laba col oo goob isaga hor yimid uu dilku ka dhex dhaco. labadaas siyood yaa midba si lagaga xaali jiray. soomaaliduse sideedaba qisaasta ma ay aqoon, inta ay ku dhaqantaana ma badnayn. dhif iyo farakutiris ayay ahayd nin dilay in inta lasoo qabto isna loo dilo, inkastoo ay diinta islaamku sidaa farayso. hase ahaatee, dhinaca kale waxay diintu u oggolayd, gadaalkiina hiddaheeda ka mid noqday, qisaasta beddelkeeda inay kala qaataan mag 100 halaada haddii qofka la dilay uu nin ahaa, hadduu dumar ahaana 50. taasina waxay noqotay sabab ka mida sababihii ay u daliishan jireen, welina qaarkeed uu u daliishado in laboodku uu dhadigoodka ka sarreeyo marba hadduu ninku 100 yahay, gabadhuna ay 50 tahay. ismaaciil mire oo u dan lahaa nin dhallinyaro ah oo uu dhaliilayay ayaa ereyga 100 isaga oo ammaan ula jeeda wuxuu jeer ku xusay gabayadiisa midkood. waa markuu lahaa: barbaar waxaad ahaataba mar baad baydan kulantaanee dhashu waa bishaaree haddaad eebbahay barido uu 100 wiil kuu dhashood beerka kaga rayso waxaad biilka siisaba hadduu turuqiyo buuraado bogga laga wareenyow hadduu bili haween yeesho hadduu baaqdo goortii uu kaco boohin kugu reebiye buuryi qabka inaad daydisaad kaga bogsootaaye baddu hadday ayaan kaa liqdana kaama ba'a ciilku. bixinta magtu 2 heer ayay mari jirtay, labadaas oo la kala yidhaahdo rafiso iyo magdheer. rafisadu waa aaraaba geel tiradiisu aysan 10 halaad ka badnayn, oo haddiiba markii qofka la dilo ay qolada wax dishay la soo degdegi jirtay, waase haddii cidda uu ninku ka dhintay aanay wax hore ku sheeganayn. aadkeedana rafisadu waxay muujisaa niyad wanaag iyo cidda wax dishay in wixii dhacay ay ka qoomamoonayso, xagga nabadda ay u xaglinayso, isla markaasna ay ka go'an tahay magta inta harsan inay bixin doonaan. taasoo sidaan soo sheegay iyadana magdheer loo yiqiin, ama lafdheer sida gobollada qaarkood laga yidhaahdo. odayadii dadka u talin jiray qaarkood siday noogu warrameenna, marar badan waxaa jiri jirtay tolka geelaas 100 ah lagu yeeshaa inaanu wada bixina uu qayb ka mida xeerto. macnaheedu wuxuu yahay in 2 qolo oo degaan ahaan daris ahi ay ku heshiiyaan ninka ay qolaba qolada kale ka disho inay 60 ama 50 halaad oo keliya ku kala qaataan.
sidaasina ay xeer u noqoto. Ha yeeshee halkii aanu xeerkaasi ka jirin magta boqolka ah ayay ku kala bixi jireen iyada oo xukunka shareecada loo hoggaansamayo. taasise nin ama laba la iska dilay bay ku saabsanayday. waxaa dhici jirtay laba tol ama laba jilib in colaad gaamurtay ay dhex marto, inay rag badan iska laayaan, kol dambana ay ku heshiiyaan inay heshiiyaan. markaas buu dhinac waliba tirada raggii goobaha kaga dhintay soo bandhigi jiray, dabadeedna qolada laga badsaday ayaa nindheeriga mag laga siin jiray. su-aasha haddaba meeshan ku jirtaa waxay tahay, maxaa dhici jiray haddii magta amaba nindheeriga la isu diido? jawaabtu waa hoog iyo ba iyo haantooley. bal taasna aan sheekadan ku tusaaleeyo. waxaa la yidhi laba jilib oo Soomaali ah, abtirsiinadana aan ku kala fogeyn, ayaa guyaal dhowra markay dirirayeen gabaarkii la isa soo hor fadhiisiyey. wax la is-eedaysto iyo wax la garamaba raggii ku kala dhintay 13 nin ayay noqdeen. qolo ayaa 6 laga dilay, qolana 7. markaas bay xeelbeegtidii waxay go'aamiyeen qolada ninka dheeriga ah qabtaa inay ka bixiso mag 100. hase ahaatee ma ay suuro gelin, waa la diiday. oo maxaa dhacay? waxaa iska soo taagay xuseen xasan rooble oo ahaa gabyaa colwadeena, kana soo jeeday qoladii ninka dheeriga ah qabtay magtiisana lagu xukumay. guddoonka markii la riday wuu maqnaaye, kolkuu inta yimid loo warramay ayuu furka tuuray. ma hebel iyo hebel oo iga maqan baa haddana la yidhi mag bixi. walle ma dhacdo, oo haddaannu reer hebel nahay, rag aan layno oo aan duudsinna ha joogtee had maynu mag bixinay. had mugeel aanu leenahay xero cido kale u soo hoyday ama ka foofay. dabadeedna isaga oo garwaaqsanaya raggii 6 ahaa ee dhinacooda ka dhintay, kuwii dhinaca kale ka dhintayna aan waxba ka soo qaadayn, ayuu gebiyey. waxaa gabaygii uu maalintaa tiriyey naga soo gaaray 6 nin oo mankiga shaalka iyo midhihii guuleeda oo wada madhaafta ah, raggii kaga maroongeeyey inaan weliba maal ugu daraa waa masale dhaafe. weligeed markaha looma culin magaanu socnaaye waa waxaan dhagahaygu maqal maanta ka horoowe. inaanaan cayuun soo marayn maraya dhaadheer leh haddaynu reer mataan nahay, sidaas weydunmaan garan. magta oo la diido waxaa xigi jirtay colaad lagu baaba'o oo markii la diidaayo rag noolaa lagu waayo. magta oo la diidaa waa badrad oo quursi bay Soomaalida ula mid ahayd, siday odhan jireenna wax quursi ka xun oo rag lagula kacaa ma jiraan. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.